Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa khiyaarta soo dhawaada muuqaaladii aan marmar yar duubi jiray weeye. Maanta waxaan ka hadlayaa runtii dhacdada naxdinta lahayd ee ka dhacday magaaladii gaalkacyo ahayd runtii oo magaaladaas inta badan wanaag laga soo sheego aad buu u yaraada waayadan. Ilaahay baa u maqan. Dhacdadaas oo ah gabadha yartaa islaanta ay la joogtay ay dishay yacni cil iyo maxaan ku dhahay iyo calool xumo gabadhaas kule way aragtay. Laakiin waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah dadkii soo hadlay markii gabadha dhibkeedii iyo geerideedii la maqlay oo kulligood sheegaya inay waayeen gabadha in ciqaab lagu hayay. Sideedaba Ilaahay subxaana wa tacaala adduunkan wax walba sabab buu u keena buu u sameeyaa. Inta badan waxyaabaha qaarkood markay dhacayaan waxbaa laga hormariyaa caddeymo muujinaya inay wax khatara dhici doonaan baa laga hormariyaa. Marka gabadhaas waxaa laga yaabaa dad badan inay u cabatay. Gabar xamar ka hadlaysay baan arkay oo tiri xamar baa jooga wareerka waa la joogi jiray gabadha islaanta aad bay gabadha u dili jirtay. Islaan kaloo hadlayso waxaan arkay dhahaysaa iyaduna maxaan ku dhahay gabadha dhowr jeer bay maxaan ku dhahay intay nala soo hadashay bay wax ka sheegtay. Yaa marka waxaasoo dhan waxay ahaayeen asbaab la muujinayay gabadhan waxa ku soo socda balse bini'aadamku tallaabo uga qaadi karo inkastoo qadartu ay meesheeda tahay oo gabadha inay saa u dhimato ay qorshaysnayd. So waxa garateen maahan. Marka sideedaba Soomaaliya iyo dhulka Soomaalidu degto oo dhan ama meelaha ay joogto oo dhan carruurta la joogta dadka aan dhalin aad bay runtii u dhibban yihiin. Yacni ma garanayo waxa iswaafajiya mar walba inkastoo dad fiicanna ay jiraan oo carruurta ay koriyaan ilaa hadda markay waaweynaadaan ay xiriir la yeeshaan fiican oo ay iska warqabaan oo qaarkood ilmahooda ay uga fiicnaadaan. Haddana inta badan carruurtaasi waa dhibban yihiin, waa cadaaban yihiin. Problem badan baa lagu hayaa, waa la iska dilaa, dugsigaa laga yaabaa in lagu dilo, gurigii baa laga yaabaa in lagu ciqaabo. Yacni cunugaas pressure-ka runtii haysta walaalayaal waa aad buu u xooggan yahay. Mana laga warqabo runtii. Wallahi carruurtaas feel sorry. Weliba kuwa ama waalidiintooda is fureen ama waalidiintooda ay dhinteen. Yaa وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إلهي سبحانه وتعالى wuxuu leeyahay war ka feker carruur Ilaahay uga baqaan carruurtaada oo kaleeto adiga oo dhintay bal qiyaas dhibka ay la kulmi karaan. Yaa ka feker carruurtaas oo la naxariis ma jeclaan lahayn carruurta Ilaahay ku baday ee kula joogta haddaadan marka hore mas'uuliyadooda qaadi karin oo aad kulushahay oo dadka dilaa aad tahay dee marka horeba ha hayeen mas'uuliyadooda ha qaadin. Yaa haddii kale soo ma ahan dee Ilaahay uga baq oo weliba waxaa la rabaa inaad mas'uuliyad gaar ah iska saartid kuwa aad dhashay weliba aad uga roonaatid baa la rabaa. Yaa kuwa aad dhashay si aad ugu roon tahay si ka badan inaad ugu roonaatid ayaga maxaa yeelay ayaga haddii dayac soo gaarahay dhaliisheeda waa leedahay laakiin carruurtaada haddii dayacmaan waxaa laga yaabaa aad inaan lagugu dhaliilin. Marka waxaa laga yaabaa waxaa muhiim ah carruurtaada cuntada markaad siinaysid oo kaleeto ayaga u roonow. Hubi in ayaga wax cuneen. Habeenkii haddaa ay wax ka dareento inay xanuunsan yihiin oo kaleeto aad uga warqab. Dhakhtar la gaarso wixii. Kuwaaga haddaa rabtid 2 maalmood 3 maalmood sug laakiin ayaga hadday caawa xanuunsadaan berri oo kale dhakhtar gee. Ha dareemaan inaad uga jajaban tahay kuwooda. Runtii wayna jiraan waalidiin saas khayr Allaha siiyo oo carruur aysan dhalin aad u soo koriyay oo wanaag badan u sameeyay way jiraan. Laakiin inta badan weliba dumarka naxariistaas inta badan laguma arko. Ilmahaaga xataa u naxariiso. Soomaalida dhibaatada jirta waxay tahay dadkaan wada kakanaanta ka wada dhigay oo ilmaha inay caasi noqdaan ka wada dhigay oo waalidooda hadhow inay hilmaamaan u keenay waxa weeyaan ilmaha marka horeba lama tusayo si fiican oo naxariis leh looma barbaarinayo. Yaa war ilmaha si fiican naxariis leh oo jilcan oo aan dil lahayn cunug 5 sano 3 sano jir oo la dilayo wanaagga aad ka sugaysid muxuu yahay iyo baarnimada uu ku noqonayo adaaba ku caasiyey. Ilmaha dilka ha laga daayo oo macallimiintu ilmaha canaadka ha ka daayaan cunuga ha canaadin xataa haddaa ciqaabaysid hadduu ku dhibo oo kale iga bax dheh intaad dili lahayd iga bax banaanka istaag hadduu banaanka xoogaa istaagna asagaa iska roonaanay ama istaaji si kale u ciqaab laakiin gacan ha u qaadin. Dilka inta badan waxba ma keeno wanaag ma keeno. Yaa marka
gabadhaas oo kaleeto cadaymo badan baa la muujiyey laakiin maxay wax uga qaban waayeen haye ninka islaantaas qaba ay gabadhan khasab u arkaya iyadoo lagu adkeynayo iyadoo la dilayo iyadoo si xun loola hadlay wuu arkay kaas waa aabihii guriga ya talooyinka marka aan siinayo dadka ilmaha aysan dhalin haya waxa weeye haddaaba mas-uuliyaddaas qaatid oo cunug aada dhalin aad rabtid inaa ilaahay kuu qoray inaad korisid walaalow ama hooyoy aabbuhuna ha ka warqabo cunugaas hooyadana waxaa la rabaa inay xil gaara iska saarto oo cunugaas aada dilin aada wax ku samaynin hadduu dhib badan yahay oo aragti inaad hayn karin intay dhibkaasoo gaari lahaa iska wareeji what's problem haddaa kulushahayna iska wareeji ayadana yaa ilaahay uga baq aabbayaasha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa inta ilma soo kaxeeya ay naago kale ka dhaleen u keenaya naago kale oo aysan dhalin ilmahaas mas-uuliyad baa kaa saaran waa inaad ka warqabtaa wuxuu ku seexdo waa inaad ka warqabtaa in wuxuu cuno waa inaad ka warqabtaa caafimaadkiisa waa inaad ka warqabtaa iskuulkiisa waraysataa dhahdaa haye maanta maxaa iskuulka lagaa soo yidhi haye maanta cid baa ku dishay haye maanta yaa isqabateen maanta yaa hadal xun ku yidhi ilmaha waraysta kuwa dhashay xataa warayso markay madrasada ka yimaadaan warayso waxaad dhahdaa haye maanta madrasada ka waran haye maanta macalinka ama ku dilay haye maanta maxaa lagugu qabsaday haye casharka ama kugu adkaaday ilmaha waxaa la rabaa problemska adduunka maanta waa wada problem yaran la xalli problemka haysto wajahay ya oo tusi inay jirto cid garabkiisa taagan oo hadduu dhibaato ula soo kulmay banaanka la soo kulmay uu u sheegan karo laakiin hadduu cunugu ciil iyo caro u dhinto ka waran oo cunugii dilay cid uu u sheegay aysan garanayn oo macallinkii ku xadgudbay cid uu u sheegay aysan garanayn boqolaal ilmood baa dhib kusoo gaarta saas qaarkood lagu kufsaday qaarkood wax lagu sameeyey qaarkood lagu ciqaabay jirkooda ya ilmaha mid kale waa inaa haddii iskuul dugsigoo kale lagu dilayo u sheegtaa dhahdaa ilmaha iga dil ana inaa waxbartidaan kugu keenay cunuga ya 10 sano cunug ka yar oo la dilayo waa khalad okay maxaa yeelay diinta islaamkuba nabiga sal alla slam waxyaabaha u sheegay waxaa ka mid ah wadribuhunna bicashara salaada 10 sano markuu gaaro ha lagu garaacaa la yidhi salaadu waa shahaadateynka wixii ku xigay baa la yidhi 10 sano ilaa uu gaaro laguma garaaci karo so cunug 5 sano jir oo dugsiga lagu soo garaacayo oo gurigii lagu garaacayo oo wax naxariis aan arkin oo banaanka kuwii ku xoog weynaa garaacayaan yani cunuga qaabka uu ku korayo fiiriya hadhowna wanaagaa ka sugaysaa muxuu u tahriibay baa leedahay oo iskuulkii wixii markuu saas ku dhameeyo aan shaqo helaynin wixii uu saas ugu rafaaday aan waxba ku helaynin war ilmaha ilaahay uga baqa war ilmaha u naxariista war ilmaha weji wanaagsan tusa ya si jiil fiican noogu soo baxo ilmuhu waa gallad ilaahay subxaana watacaala bixiyo waa maxaan dhihi karaa yani waa waxa ugu fiican ilaahay subxaana watacaala uu bixiyo dad baa millions inay ku bixiyaan maanta inay hal cunug helaan diyaar u ah soomaaliduna intay iska daldalaan bay meelaha uga tegayaan oo dayacayaan oo aysan qaarkood biilayn oo hooyooyinka lagu rafaadinayaan oo waa kanaa mid baa dilaysa gabar yar oo 13 jira oo raje ah oo agoon ah yani ciilka iyo carada ay gabadhaas baday ilaa sidii loo ciqaabayay ay dhimatay adduunka yani cuqubada gabadhaas oo kale ka dhalanaysa ummadda maxaa u malaynaysaa marka very emotional baa ah runtii wax badan ma sheegi karo laakiin waxaan midda aan kusoo koobay waxay tahay ilmaha ilaahay uga baqa wallaahi ammaanadaas ilaahay buu weydiinayaa la wada dayacay meel walba ilmo rafaadsan iyo ilmo silicsan iyo ilmo gaajaysan iyo ilmo waalidiintood qaarkood ku xadgudbayaan iyo ilmo kuwa qaraabada la ahaa ay la joogin ku xadgudbayaan هذا السلام عليكم ورحمة الله